waxa magaalada Burco si rasmi loogu soo gabagabeeyay dowra cilmiyeed socotay muddo 2 maalmood ah taasoo ay soo qaban qaabisay mu'assasatu Al-Rahma isla markaasna waxa ka faa'iideystay dowra cilmiyeedaasi 60 macallin oo kamid ah macallimiinta dhigta Quraanka Kariimka dowra cilmiyeedaasi ayaa ahayd mid lagu tababaray macallimiinta dhigta malcaamadaha Quraanka Kariimka isla markaasna ahayd mid kor loogu qaadayay barashada Quraanka Kariimka xiritaanka dowra cilmiyeedaasi ayaa waxa ka hadlay culimada diin tira badan waxaanay dhamaantood ku dheeraadeen sida loogu baahan yahay sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarasho malcaamadaha dhiga Quraanka Kariimka dowradu waxay noo soconaysay muddo 2 casho ah dowrada hadaan hadaafteeda ama ujeedooyinkooda aan yar ka taabto iyo waqtigu isku kooban yahay ugu horeyn hadafka koobaad aanu ka lahayn waxa ahayd inaynu Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ama hadalkiisa inoo soo dejiyay bal inaynu xusuusin iyo habsami socodkiisa bal inaynu yar iska weydiino barlabaadka thaqaafad ahaan inaynu bal inaguna xoogaa isdhisno maadaama oo inta kale lagu mashquulsan yahay ardaydii iyo madaaristii bal in waqtiga yare kooban ee 10 saacadood ama 8 saacadood bal inaguna xoogaa bal khibradda ay aqoonyahanku noo soo jeedinayaan ka faa'iideysano mar saddexaadka waxaanu ka lahayn macallimiintu inay laftarkoodu isdhaxgal iyo isbarasho oo laga yaabo macallimiintu inaanay chance isku helin hadii cid isku timaadana isku timaado inta hal meel ama hal markiis ama hal mu'assaso ama hal madrasad ka wada shaqeysa been 60 ka macallin iyo ka badan ba insha Allah ta'ala bal inay isku yimaadaan oo isdhaxgal iyo isbarasho ay u noqoto ahdaaftaas ayaa runtii kamid ahaa dowladda mawaadiicda dowladda lagu qaatay waxay ahaayeen mawaadiic ku qotoma ama la xidhiidha madaarista iyo quraanka alle horumarintiisa maadaama ay iska yar tahay khibradda aynu aqoonta u leenahay oo laga yaabo macallinku inuu gibiso 30 ka quraanka intuu bartay xifdiyay kadibna uu madrasad ka shaqeeyay ama aasaasay hadduu cilmi kala bartay cilmigaas yahay cilmi runtii mala ama shariicada kale ah ama maxay mawaadka kale ee la dhigtaa ee yar tahayba cidda aqoon rasmiya ama khibradeedii haysata Quraanka Kariimka habsami socodkiisa iyo aqoontiisa kale haday tahay macallinimo walaalayaal Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala mahad iskale marka koobaad marka labaad waxaan u mahad celinayaa multaqa rahma oo soo agaasimay oo isku soo dibariday tababarkii ay qaadanayeen macallimiinta Quraanka ee gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco runtii waxaan oran karnaa tababar aan ka qayb galno waa kii ugu qiimaha badnaa Ilaahay waxaan uga baryaynaa subhanahu wa ta'ala miisaaniyada iyo maalka ay ku bixiyeen inuu miisaanka xasanaadka Ilaahay ugu daro macallimiinta Quraanka waxay hayaan baan isleeyahay ismarihi waa xaqiiqa hawshii iyo mas'uuliyaddii ugu weyneyd ee ummadda loo qaban lahaa qof waliba meel buu kaga beegan yahay ummadda hawlaha loo hayo laakiin tii ugu weyneyd idinka haya macallimiin waxa runtii aan kaliya aad iyo aad u dhiirigelinaya quraan dhigista waa dhigisuun maada la dhigayo wax kasta oo la dhigayana waxay u baahan yihiin oo quraanku ugu horeeyo inuu jiro daafic wada macallinka iyo ardayga labadaba daaficiyadaasi macallinka quraanka dhigaya waxay la tahay inaanay ka sokaynin inuu tiigsanayo qowlka nabiga sallallahu alayhi wasallam khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu waxaan u mahadnaqayaa maamulka multaqaha مراكز الرحمة لتحفيظ القرآن وسوق قابسي حفلة قيمها بدل يا برنامجي كهري تدريبي جاها اللي بدي عيش السعودي رنتي أنو مدارس الرحمة يا معلمين تيدا وسيديت انكروا رافيا أو حفاظة وحكم ذيهن مدارس أنو كفانو كمؤسسان وحقبت كبلارن iyo biyo culusta quraankii ay xambaarsan yihiin dadkiina ay barayaan ay bulshada ugu jiraan
in badan xafladahooda khitaamiga ee qabsanayaan ee ardayda marka sana dugsiyeedka loo soo xirayo oo aanu ka qayb galno iyo xafladaha qalanjabinta qur'aanka oo idinkuba in badan aragteen iyo musaabaqaadka heer gobol iyo heer qaranba guulaha ay ka gaaraan waxaan filayaa dhammaanteenba inay yihiin madaaris aynu ku faano gobolkuna ku faano marka iyaga mahadnaq gaara baan insha Allah tacaala soo jeedinayaa mu'assasatu Rahma iyo furuucdeeda oo multaqa Rahma oo ka mid yahay runtii waxaan aaminsanahay waxay ku jirtaa ama ugu jirtaa gobolka kaalin aad iyo aad u weyn waxay ku mashquulsan tahay waa cilmi waliba waa ashraf alculuum oo cilmu kalaam Ilaahi jalla wa ala hadalka alle culumta ku tacalluqda oo ka yahay quraanka kariimka in la xifdiyo la cinaayeeyo runtii mu'assasadaas iyo sheekheeda aad iyo aad u mahadcelinayaa waxaan arkaa wada sax ah inay hayso jamciyatu hidaaya oo iyaduna runtii majaalka ku jirta aad iyo aad baan iyada u soo dhaweynayna inta badan waxaan loo yimaadaan istaragnaa waa khayr raxma jamciyatu hidaaya kolley walismana adagu nooguma yima jaamacadda cid kasta oo ummadda wax u qabanaysa waa in loo mahadceliyaa runtii waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo suuro geliyey xuduurkan iyo dowladan runtii aadka u qiimaha badan leh ee lagu qaadanaya ashraf alculuum ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala iyo wixii axkaamaya la xidhiidha ثانيا واحد يتضامن إخلاص العمل الإخلاص في النية إن أدمرتي إلهي كتاب في أشرف العلوم آيات عنده وايفا إن نيتنا وناتسام وإنبضا ومانت مدارسة وفرن وشيددوا وحويا الالتزام وبريف نيادة وين نقطة كتاب كان إلهي إن تبسه كتاب كان إلهي أمده إناد قاسيسه رسالة إناد قدبسه ثالثا ووحي أقالتين يقال هذا الظلوة الصالحة إلى الضوء isuduha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Togdheer Kaysa Xaaji Diiriye ayaa u mahadceliyay mu'assasatu Al-Rahma laakiin mid waxaan idin sheegayaa haddii nimanka xoolo laga dhaco xoolo waa laga dhacay laakiin diinta lagama dhici karo diinta taqaan haddii cadow ku helo diintu waa xirsi xog ku tahay iyo nabadgelyo haddii aad dhimato adduunyada waad ka tegaysaa godku kula gelmaysa laakiin diintii wuu kula gudgelisay waxaan leeyahay ajirka iyo xasanaadka aad samaynaysaan waxbarashada arsaaqada ilaah baa qoray haddii wasaaro tahay iyo haddii meel kale ilaahay wax ka keenaba baankii ilaahay baa inoo furan wasaarad kastana diinta xil baa ka saaran diinta iyo qofta qura maaha kastoo shahaadanaya diinta xil baa ka saaran xuquuqdii diinta aan raadino midayntii culummada aan raadino ardada iyo macallimiinta aynu isku ilaalino mid maalqabeena iyo mid kaleba anigu waxaan leeyahay ilaahay winala garab galaya qalbigeena iyo qulubteena isku noqoto ugu dambeyntii waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey 60 macallimiin oo ah macallimiintii ka qayb qaatay dowra cilmiyeeddaasi Maxamed Ibrahim British shabakadda caalamiga Harunag News Burco